كلتوعنا ونكسن إذ لهان تيمبا ملك سنة قديسان إنسان كنا سدوات برنامج كيني تحناها هاي مولد دلانكا وكديستان شنال كانوا كلنا يوتيوب دلان كورية تضبط بشيكة عصبة يكون مغشان شيكة تضبط كنا أكون مغليسان وحي قيب كتهاي تحناها شيكة دي نوستعوتي إبغردي روضة تمدهب لي انتي نهران ولسعوتي صودا وطي لبضي قيبوضة هوريش شيكة كوريسي وحينو جوكتي قيبتي وقدم بيسي يدور روضة تمدهب لي أي كلا هذا الشيء مسحردي كميلة فالك أي كسميسي إن انتي أي بينك كدكتي كميلة waxay shuruud uga dhigtay inay inantu ku soo noqon karto sideedii hore oo ay sixirka ka jabin karto kaliya markay helaan oo ay u tagaan mastuulaaga dhasha ee toddobada buurood guntooda dambe buurta toddobada godle ku dhex jira waxay u tilmaantay jaha khaldan waxayna ku tidhi haddii mastuulaaga dhasha u tagtaan kadibna ay ka qosliso inantaan biinka ka dhigay markaas oo kaliya ayay ka jabaysaa sixirku kuna soo laaban kartaa inanimadeedii hawshan ayay isku hawshay oo dhabarka u ridatay roodada timadahabley sidii ay ugu heli lahayd mastuulaaga inanta mastuulaaga laga dhigina waxaan hore ugu soo baranay in si loo ciqaabay caawmaaday doonaysay inay caawiso roodada timadahabley haddaba roodo waxay u safraysaa oo hadda ay raadinaysaa jahada ay ka xigto iyo halkii ugu dambeysay ee u tilmaantay boqoradu ama masxiradu aan idhaahdee bartaw ku jiro mastuulaaga oo beed ayaa waxa ku jira buur toddoba godle oo ku taala toddoba buurud gadaashooda dambe waa beed waxaan halka ku xanaanayn jiray oo hayay 3 bakaylo oo yaryar waxay tahay in hadda ay helaan oo raadjaan dariiqas ay u mari lahaayeen waa ku dhib badan wayna ka qarisay kamiila musxiradu inay u tilmaanto oo jaha khaldan ayay u tilmaantay balse rooda iyo biinka oo horboodaya ayaa dhaqaaqay waxay u socdaan jahada ay ula tahay inuu ka xigo marba marka ka dambaysa ayay sii qaadayaan dhul qurux badan oo doog leh cagaaran sidoo kalena deegaan ay bilic samaani ka muuqato waxay muddo socdaan oo biinku marba marka ka dambaysa sii horboodaba waqtiga iyo maalmahuna ay isguraan waxay kolba u dhowaanayeen jahada ay u maleynayaan inuu ka xigo godka uu ku nool yahay mastuulaagu biinka ayaa yidhi waan daalay oo ma socon karo boqoraduna intay ku foorarsatay oo ay qaaday ayay timaha ku xidhatay safarkana halkii ayay ka sii waday laakiin caruuray waxa sheeda kala socotay oo markasta daba socotay guumays oo ahayd basaasad waxay u maleynayaan inay heli karaan qunyar sida ay moodayaan samaha ayay tidhi shinni ayay ku soo baxeen waa qolfof bulay shinni oo boqoradii ka maqan tahay mirmir shinni ayaa hareer duulaya malabna kama muuqdo waa qalayl boqorada ayaa tidhi maxaa ku dhacay kaloo boqoradii shinnida malabkan lahayd miyay dhimatay mise way iska tagtay mayabiinka ayaa ku yidhi maya u malayn maya inay dhimatay geedka barbarkiisa eeg mar kaliya ayay boqorad weyn oo nooca shinnida ahi soo degtay intii soo hortaagtay ayay tidhi markaasay boqoraduna naxday waxay ku tidhi waxaan raadinaynaa buurta toddobada god kale waxaan doonaynaa inaad halkaa noo tilmaanto ma noo sheegi kartaa oo ma saxannahay fadlan nacaawi markaasay marka loogu celisay nacaawi miyaan khaldannahay xaggan mise xaggan shinnida ayaa madaxa ruxday oo ku tidhi haa waa saxan tihiin biinkuna waxau yidhi waanu saxannahay eena mari hare ayay u sii socotay waxayna ku tidhi waxaan kuu rajaynayaa in xagaaga soo socda aad malab intan ka badan hesho muddaba waxay sii socdaan dariiqu wuxuu ahaa ku dhib badan oo ay adag tahay in si dhib yar looga gudbo waana sababtay musixiradu u dooratay waxaa ku hareeraysnayd dhir dadka cuntaa oo noolaha cuntaa afka kala furta liqda wixii soo marana jidkii markay marayaan ayay arkeen biinka ayaa aad u baqday oo arkay inaysan maanta halkan ka gudbi karaynin baqdin darteedna dhulka ayaa ku dhacay isaga oo qaylinaya kor intay u qaaday ayay ku tiri aamus haddaynu aamusno oo aynan dhirtan isku toosin waanu dhaafi karnaa markaas ayay isku dayeen inay qunyar oo gaatam iyagoo si tartiiba u socda inay dhaafaan ayaan darase markay marayaan kii ugu weynaa agtiisa ayaa caruuray waxaa hindhisa qabatay
biinkii waa mucjise markaas isku dayday inay afka timaheeda ka saarto balse aan loo maqlin muddo ayay ku xijisay aamus waawse xiji kari waayey oo mar kaliya ayaa intay timihii wuxuu la booday markaasa ayaan daradu tii hore ka daranay geedka ku toosay afka ayaa u kala furay waxuu liqi karaa qof dhan xataa marka qaarna waxuu liqi karaa neef dhan oo xayawaan ah waana wax aan la dhayalsan karin arinta ayaa ku cuslaatay Roodatimo Dahablina waxay lahayd timo mucjisa ah oo markastoo ay xaalad adag gashaba caawiya markii ay noloshoodu khatar weyn gashay ayaa timaheedii waxay soo qaatay dhagax banaanka yaalay oo weyn dhagaxii ayay ku soo duubtay kor ayayna u soo dalacday intoo si tartiiba u soo qaaday ayay afka ugu turtay geedkii isna waa u liqay intuu ku hawlana liqistana oo caloosh ridinayaan mar labaad afka furina waxay isku dayeen orad inay ku dhaafaan balse dhirtii kale dadcuunka hayd ayaa sanqadhi maqashay oo wada toostay Roodatimo Dahablina inta indhaha isku qabatay ayay orad isa sii daysay waxayna isku dayday sidii ay ku bixi karto inay ku baxdo allana waa soo dhaafiyay socodka ayaa sii badanayay daal ay basteed noqonaysay marba marka ka dambeysana dariiqa ayaa sii fogaanayay laakiin si lama filaanayay indhaha ugu dhufatay 7 buurood iyo buurtii 7 god lahayd ee ka dambeysay markaas ayay farxaday oo ay tiri wata buurtii uu soo gaadhay halkii uu soconay rajadeena maanta ay ugu fiican tahay oo runtii waxay u dhowdahay inay riyadeenu rumowdo timaheedii mucjisada ahaa iyo mar kale buurta madaxeeda sare ku tuurtay waa figta buurta inta isku duubeen ayay iyaduna famatay oo kortay raacday si ay buurta ugaga bixi karto maadaama ay aad u daalanayd markay dhakada ugu sareysay marayso oo ay soo dhawaatay ayay aragtay 3 bakayle ee beedka ilaalin jiray mastuulaaga waxay tiri waynu joognaa waa kuwan bakaylayaashii waxay ku tiri waxaan doonaynaa dhasha mastuula miyaa aragteen way baqdeen oo juuqumaani odhan bin ayaa ku yidhi sidan si ka fiican oo naxariis badan la ula hadal waxay ku tiri waa runtiin iga raalli ahaada 3 bakayla yaryar quruxda badan low waxaan raadinaynaa dhasha mastuula meel miyaa ku aragteen intay yiraahdeen way mar qura dhoola cadeeyeen isna daba galeen ayay god hoos ugu daadegeen waa godka uu mastuulaagu ku jiray binkuna waxa uu waynu haynaa intuu timaha ka booday ayuu hoos u dhacay nasiib daradiisa waxa uu ku turunturooday dhagax yar oo godka hoos yaalay si qaab daran oo xawli la ayuu dhacay lugtana waxa uu kaga dhacay mastuulaagi yaraa markaasoo isna marna ku farxay haddana ka naxay naxadintii ayuu mar kale dubka kaga booday dubkana ma ogola mastuulaagu marnaba in lagaga fadhiisto waa isxijiyay indhaha ayuu isku qabtay mar kale ayuu yidhi iga deg markaasuu marka ka dambaysa sii xanuunsanayay laakiin biinku ma dareemaynin inuu xanuujinayo markuu xijin kari waayay mar dambe ayay Roodatimo Dahablina ku tiri waxaan u malaynayaa inaad xanuun ku hayso halkaad kaga fadhido ee ka kac isna inta dubkiisa laabtay ayuu yidhi markaasuu ku xanaaqay oo afka ku kala furay ilaa wow xanuujiyay binkan inta soo carray yidhi malaha ima jecla Roodatimo Dahablina ayaa ku tiri waa ku jecel yahay oo waa xayawaan fiican laakiin waad xanuujisay hadalkii boqorada ayuu mastuulaaga ku farxay ereyga soo tirahdana waa ka helayay waxay ku tiri binkii waa inaad la hadashaa waad u noqotaa qof baari oo u furfuran si aanu jeedkeena uga gaadhno waad ogtahay inaynu doonayno inaynu ku qoslino waana shuruudii ay Kamiila inagu xidhay balse ayaan darro wax kasta oo binku yiraahdaba kama helo mastuulaagu xataa timaha rooda ayuu fuulay wuxuuna ka sameeyay wuxuu ku qosli karo oo xaraabo uga dhigo laakiin haba yaraatee marraba kuma qoslin oo dareen qosla ma gelin markaasuu caleen dhulka taalay ruuxay oo siiga ku qariyay wuxuuna isku dayay inuu mastuulaa yar oo dhal ah ka sawiro balse awr bay ka noqotay markaasuu inteegay haddana ku qosli waayay oo haba yaraatee wax farxada iyo qosla tusi waayay markastana arrinka ayaa ku sii adkaanayay boqoradii ayaa tiri malaha wuu gaajoonayaa oo cunna ayuu doonayaa ee maxay cunaan kalow mastuulaaga dhashay binkii baa yidhi waxay cunaan midhaha ay ku sawiran yihiin ee iyaga u eega cagaaran inta uu fahmay ayaa uu qoslay
mastuulaagu markasta hadalka boqorada ayaa ka helayay boqoradiina waxay u kacaysay mastuulaagii banaanka si ay midho ula raadiso ugana qosiso balse caruuray guumaystii basaasada ahayd ayaa aragtay waxay tiri sidee ku dhici karaan ilmihii la qariyay inay helaan markiiba intay oraday ayay u tagtay Camila oo shir adag la leh 3 kamida masixiriinta ugu waaweyn ee faalka ka samaysato waxay ku tiri dhagaysta war culus ayaa jira boqoradii Roodatima Dahabley iyo biinki waxay heleen mastuulaagii Camila ayaa tiri sidee u heli karaan soo good fukumaan xidhan iyagana meel khaldan uma tilmaamin mid kamida masixirada ayaa tiri ma dhici karto waa inaynu qaadnaa talaabo degdeg ah waa inaynu arrintan kaga hortagnaa si adag waxaad ogtihiin nolosheenu dhanba taa ku xidhan mana dhici karto marnaba inaynu u ogolaano in ay hesho waayo waxaan ognahay in haddii ay fursadani u suura gasho ay tani noqon doonto dhammaadka masixiriinta boqortooyada ku nool oo dhan waxayna tale ku gaadheen in laga qariyo buug weyn oo ku yaalay meel la og yahay kaas oo ah buugga ay u dagaalamayaan inaanay masixiriintu marnaba helin boqoradu sheekada qaybteeda afaraad aan idhaahda caruuray sheekada qaybteeda afaraad ayaad ku ogaan doontaan halka ay ku dambayso waxay kala yeelaan 4 masixiriin iyo bal inay ku guulaysato boqorada Roodatima Dahabley ujeedadii ay lahayd ee ahaa inay sixirka ka jabiso beenka taniyeyntan ku kulmayno sheekada tan xigta waxaan idinkaga tagaynaa nabadgeliyo meel kasta aad naga dhageysanaysan waxaan idin leenahay waqtigu haydin wacnaado haddii sheekooyinka aad ka dhageysato channelkeena dhalaan koriye fadlan subscribe saar siina gudbi oo gaarsii baraha bulshada iyo asxaabtaada tan iyo kulantideena dambe mar kale waxaan idin leenahay nabadgeliyo sheekada tan xigta ha mooganin